gudoomiyaha gobolka saaxil iyo duqa magaalada Berbera ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay wafdi ka socotay dalka Finland gaar ahaan uu hogaaminayay maayarka magaalada Turkiga ee dalkaasi Finland Mr. Shambu iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee magaaladaasi. kulankan oo ka dhacay xafiiska gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa kadib markii uu soo dhamaaday. gudoomiyaha magaaladaasi Turkiga ee dalka Finland ayaa si weyn u soo dhaweeyay kulankaasi ay wada yeesheen mas'uuliyiinta gobolka saaxil isla markaana sheegay in ay isku xog wareysanayeen isagoo sidoo kalena ka waramay guud ahaanba socdaalkan ay ku yimaadeen dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana uu sidoo kale ka hadlay isla markaana uu ka waramay amniga iyo nabadgelyada ka jirta dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo tilmaamay in wadankii ay ka yimaadeen ay kula noqon doonaan waxyaabaha ay ku arkeen dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay joogeen oo ay socdaal ku soo mareen gobollo iyo degmooyin ka tirsan Soomaaliland. On noussut näinä vuosina, tai siis on maasta rakennettu, se on todella korkealla jo. waxyaabo aad u badan baan kala kulmay oo inta magaan jooga video waxaan kala kulmay oo nakay in ammaan badan aad u sugteen in wadanku horumar badan gaaray 22 sano magaalada aad haysateen meeshaad ka bilowdeen iyo meeshaad hiigsanayseen in aad u fogto meel fiican marayso haday noqoto xagga horumarka wadanka dhinac walba ha noqoto haday noqoto dhaqaalaha sidoo kobcayo cilmiga sad u gaadheen ama waxbarashooyinkiina siday jaamacaduhu iyo xulmo shaqaynayeen aad baan macnaha ugu faraxsanahay. sidoo kalena waxa uu maayarkaasi magaalada Turkiga ee dalkaasi Finland ka hadlay sababta loo ictiraafi waayay dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu tilmaamay inuu guud ahaanba u buuxiyay shuruudihii ay uga baahnaayeen wadamada caalamku. No ensi viikolla olen Brysselissä Euroopan pääkaupunkissa ja vien täällä terveiset sinne ja tietenkin vien terveiset kaikki Suomen presidentille ulkoministeri että mitä olen nähnyt. Sitä varten olen täällä, en ole turistina. Wuxuu yiri waxaan weekend maga soo socdo waxaan tagayaa meesha Yurubta laga xukumo Bryssel aan tagayaa. Waxa kale la kulmayaa buu yiri madaxweynaha iyaga wadanka Finland iyo madaxda sare ee wadanka maamulka haysa taasaan u sheegayo waxyaabahan kala soo kulmay wadanka doonayaan inaan macnaha sidii ay aqoonsi u heli lahayd Soomaaliland. waftigaasi uu hogaaminayo maayarkaasi magaalada Turkiga ee dalkaasi Finland ayaa waxa lagu wada in uu u soo ambabixi doono caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa maanta. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.